ma tahay qof isticmaala qaybaha kala duwan ee social media? waxaa dhici karta mararka qaar inaad ku aragtid muuqaal ku cajabgeliyey aaladda social media sida Facebook, YouTube, Instagram. aadna jeceshahay inaad soo degsatid muuqaalkaas. maanta waxaa ku haya hal barnaamij oo kaa saacidaya inaad ku dejisan kartid video walba oo ku jira social media. Assalaamu calaykum. darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa sida ku degsan kartid video walba aad ka jeclaatid aaladaha baraha bulshada adigoo isticmaalaya kaliya hal barnaamij. insha Allah qaab fudud ayaan kuugu tilmaami doonaa aad videoyadani ku degsan kartid. marka barnaamijka aan ka hadlayo magaciisa waa Feedmate. barnaamijkan waa mid free ah balse Play Store-ka lagama helayo, laakiin waxaa ku tusinayaa website aad ka heli karto barnaamij walba aad ka weysid Play Store-ka. marka waxaa soo kacsanaya browser-keyga, qaybta search-ga ayaan waxaa ka raadinayaa up to down. kadib linkiga ugu horeeyo kuu soo baxo ayaa ku dhufanaysaa. kadib waakina website-ka si fudud qaybta search-ga ayaa waxaa ku qoraysaa Feedmate. waakina feeska ugu horeeya ayaad ka dooranaysaa Feedmate HD video. marka website-kan up to down waxaad ka heli kartaa barnaamij walba aad rabtid vershankiisii ugu dambeeyey. marka waxaad dooranaysaa latest version. kadibna qaybta cagaaran ee download ayaa taabanaysaa. aniga hadda markuu iigu jiraa marraba inaan mar labaad degsado, marka halkaas kala soo deg. si toos ayaan barnaamijka ugu gudagalaynaa. marka waakina barnaamijka hal mar ayaa kili ku siinayaa saa u furano. barnaamijka markaad soo geshid saa u aragtid barnaamijyada aad wax kala degi kartid, hal mar ayaa waxaad taabanaysaa more. kadib waa kuwana barnaamijyadan dhan ayaad videoga ka jeclaatid ka degsan kartaa. aad ayay u badan yihiin, adiga kugu xirantaa marka barnaamijka aad wax ka jeclaatid. marka waxaan soo qaadan doonaa kuwa ugu caansan YouTube, Facebook, Instagram. marka tijaabada koowaad YouTube. hal mar ayaa waxaa klik siinayaa YouTube ayaa gudaha u soo galnay. waxaa rabaa inaad degsado muuqaal ka mida muuqaalada. tusaale ahaan midka ugu horeeya ayaa u baahanaya inaad degsado. marka videoga aad markaas rabtid inaad degsatid ayaa hal mar kilib ku siinay. kadib markuu uu muuqaalku kuu soo baxo falaarta hoose ayaa hal mar ku dhufanay. waa kana marka noocyadan ayuu markaana siinayaa. midka ugu hooseeyo ayaan kugula talinaa inaad mar walba ku degsatid, waayo asagaa ugu quality fiican. kadibna qaybtan download ayaa ka dejisan kartaa si fudud iyo daqiiqado yar ayuu kugu dejinayaa. marka barnaamijkan waxaa cajiib u leeyahay YouTube playlist ayaa hal mar degi kartaa. tusaale ahaan hadda waxaa ku jira playlist sida loo sameeyo EVC Plus-ka. dhammaan casharada halkan ku jiro hal mar ayaa degsan kartaa si fudud. kaliya waxaad taabanaysaa falaarta hoose ayaa kili ku siinaya. kadib dhammaan casharada waa kuwana. hadda 6 cashir ayaa ku jirto, ka badan ayaa la degi kartaa ilaa 100 cashir. hal mar ayaa waxaa taabanay dhan. kadib waa kana cabirkaa rabtid ayaa ka dooranay. cabirka ugu hooseeyo ayaan ugu fiican. kadibna download ayaa hal mar taabanaysaa. tijaabada labaad waxaa kugu tusayaa qaabka aad Facebook ugu dejisan karto muuqaal walbo aad ka jeclaatid annagoo isticmaalayno isla app-kan. marka hal mar waxaad dooranaynaa Facebook. kadib qaybtan ay ku qoran tahay go to Facebook ayaa hal mar kili ku siinaysaa. ugu horeyn markaad soo gasho Facebook
muuqaalka aad rabtid inaad degsatid ayaa hal mar dul tegaya, kadibna falaarta hoose ayaa hal mar kaliya ku siinaysaa, kadib download ayaa ka dejisanaysaa. Tijaabada saddexaad waxaa kugu tusaya qaabka aad Instagram-ka ugu dejisan karto muuqaal walbo aad ka jeclaatid. Hal mar waxaad dooranaynaa marka Instagram. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin sawirada iyo muuqaalada ku jira Instagram-ka in aan lala degi karin. Marka ugu horreyn waxaad dul tegaysaa waxa aad rabtid inaad dejisid. Marka aad tijaabino kadib waxaa rabaa muuqaalkan inaad degsado. Falaarta hoose ayaan ku dhufanayaa, kadibna download ayaad leedahay. Ugu dambeyn, isticmaalka barnaamijkan waa mid aad iyo aad u fudud. Haddii aad barnaamijyo kale u baahato inaad muuqaalo kala degto, kaliya waddooyinkii aan hadda soo marnay ayaad maraysaa. Marka darsigeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waa walaalkiin Maxamed Khayr oo khayr idin rajeynaya.